xadkii Somaliland iyo cada wax laga bedeli karo ama hadal lagu bedeli karo midna ma jirto wasiirka ciyaaraha Soomaaliya waxa leeyahay iyo xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya waxa leeyahay walaalayaal riya hadii dib leeyihiin dabadooda ku qarin lahaayeen hadii aad idinku dad wax taraysaan waxaanu arkaynaa in dawladda Soomaaliya ay u soo tafaxaydatay qarankii Jamhuuriyadda Somaliland sidii ay wax u gaarsiin lahayd dhinac kasta ha ahaato halkan waxaan ka baafinayaa wasaaradda dhalinyarta iyo ciyaaraha Jamhuuriyadda Somaliland inagoo og in hadii ciyaartoy Somaliland uu ka soo ciyaaro Soomaaliya markaaba ganax lagu la cireeri jiray ilaa imika kama hadal maxay ahayd xiriirka Soomaaliya wuxuu soo saaray xisbiga mucaaradka cud ayaa cambaareeyay tartanka kubadda cagta ee maamul goboleedyada Soomaaliya oo markii ugu horeysay lagu dhaxarkay Khaatumo oo Soomaaliya u aqoonsatay maamul ku meel gaadha xogayaha dhalinyarada iyo ciyaaraha xisbiga cud Faarax Axmed oo Hon Cable TV kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa nasiib darro ku tilmaamay tallaabadaasi waxaana uu dhaliilo xooggan u soo jeediyay mas'uuliyiinta wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland iyo xukuumadda madaxweyne Biixi isagoo geesta kalena fariin u diray dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa ayaan darro ah oo ceeb weyn in maxay ahayd gobol ka tirsan Jamhuuriyadda Somaliland in lagu sheego maamul goboleed waa ceeb aad u weyn halkan waxaan ka baafinayaa wasaaradda dhalinyarta iyo ciyaaraha Jamhuuriyadda Somaliland inagoo og in hadii ciyaartoy Somaliland uu ka soo ciyaaro Soomaaliya markaaba ganax lagu la cireeri jiray ilaa imika kama hadal maxay ahayd xiriirka Soomaaliya wuxuu soo saaray jadwal uu ku cadeynayo leeyahay waxa ku jirta Khaatumo waana fashil weyn oo dul hoggaanaya wasaaradda dhalinyarta ciyaaraha Jamhuuriyadda Somaliland sidoo kale walaal waxaanu arkaynaa in dawladda Soomaaliya ay u soo tafaxaydatay qarankii Jamhuuriyadda Somaliland sidii ay wax u gaarsiin lahayd dhinac kasta ha ahaato waxaan soo jeedinayaa marka koowaad dhalinyarta Somaliland in gacmaha la isqabsado qaranka Somaliland difaaciisa loo soo jeedsado annagu xisbi ahaan waxaan u aragnaa qaranka Somaliland waa mid degmada Laascaanood waa Somaliland meel kasta joogto ma kala tagayso 1960kii June intii xorriyadda aanu kaga qaadanay dalkii Ingiriiska xadkii Somaliland iyo cada wax laga bedeli karo ama hadal lagu bedeli karo midna ma jirto xisbi ahaan annagu mar walba qaranka difaaciisa u joognaa inuu garab istaagno laakiin waxa ceeb weyn in wasaaradda qaranka u qaabilsanayd dhalinyarta iyo ciyaaro aanay ilaa imika wax hadal ka oranin waraaqda ay soo saareen iyo qoratuurka loo sameeyay ee leeyahay Khaatumo ku jirta maxay ahayd koobkii gobolada Soomaaliya waa waxaan marnaba dhici karin weeyaan waxaan leeyahay in wasiirka ciyaaraha Soomaaliya waxa leeyahay iyo xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya waxa leeyahay walaalayaal riya hadii dib leeyihiin dabadooda ku qarin lahaayeen hadii aad idinku dad wax taraysaan dadkiina iyo ehelkiina iyo goboladiina ay ciidamada nabad ilaalintooda ilaalinayaan bad wax tari lahaydeen Somaliland idin kama baahna Somaliland waxay leedahay ciidan ku filan iyo dad ku filan iyo cudud ku filan laakiin waxaan is weydiinayaa wasiirka dhalinyarta iyo ciyaaraha oo ka soo jeeda gobolka Sool gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta oo ka soo jeeda gobolka Sool labada midna wax uu ka yiri oo uu kaga hadlay ma jirto madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland waxa leh mudane madaxweyne qarankaad u soo halgantay qarankaad cududaada iyo dhiigaaga u shubtay in wasiirada Jamhuuriyadda Somaliland wasaaradda aad u dirsatay dhalinyarta iyo ciyaaruhu aanay ilaa imika hal eri aanay ka odhanin lafjabka weyn ee Somaliland lagu wado waxay tahay ceeb iyo nusqaan waxaan leeyahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane madaxweyne dib ugu noqo wasaaradda dhalinyarta iyo ciyaaraha dad ehel u ahna keen oo wasaaraddaasi daryeela oo wasaaraddaasi baahiyaha dhalinyartu ay qabaan ka shaqeeya oo wasaaradda baahiyaha sportiska ay qabta ka shaqeeya oo dadkii iyo sportiskiiba og waa nimanka wasaaradda haya ama ha noqoto agaasimo guud ama ha noqoto wasiir waxay ka og yihiin ma jirto waayo haddii wax ka og yihiin taasay maanta ka jawaabi lahayn ma hayno meel ay kaga hadleen ma hayno erey ay ka yidhaahdeen lafjabka qaranka ku socda iyo ceebta weyn qaranka ku socda walaal